General Odawa Yusuf Raage oo cadowtooyo ka samaystay ciidamada mucaaradka kadib dhowr isku day oo uu ku doonayay inuu mushaarka iyo gunnada qoyskooda la siiyo uga jarto ayaa wajigaba xoog leh waxa uu kala kulmay saraakiisha diidanaa muddo kororsiga kadib markii maanta dartood looga saaray kulan is-arag ah oo hordhac u ahaa sidii xal looga gaari lahaa ciidamaduna ay uga bixi lahaayeen magaalada Muqdisho xarumahoodiina dib loogu celin lahaa Odawa oo marna aan filaynin jabka kaga yimid mucaaradka ayaa isaga oo aad uga xun isku dayay in uu madasha baaqi ku sii ahaado hase ahaatee waxa gudaha halka shirku uu ka socday si cod dheer ah ay uga sheegeen saraakiisha generaalkana loogu sheegay inuu isaga baxo kulanka saraakiisha kala ah General Saadaq John General Indhacade Cornel Ismaaciil Gurey Cornel Sanay Cabdulle ayaa dalabkaasi uu ka yimid oo dhamaantood hogaaminayay diidmadii ahayd in muddo kororsigii farmaajo ay diideen intaasi kadib ra'iisul wasaare Roble oo ciidamada odaynimo ee wada hadallada dusha ay u saaran tahay ayaa taliyaha General Odawa Yusuf Raage waxa uu ka dalbaday in uu shirka si degdeg ah isaga baxo sidaas ayaana looga saaray isaga oo madaxiisu hoos jiro arrintan waxa ay diraysaa laba fariimood oo kala ah in saraakiisha mucaaradka qayb ka ahaadaan ama ay qayb ka sii noqon doonaan hirgelinta qodobadii lagu heshiiyay oo ay iyagu hormuud u yihiin marna sidoo kale inay diideen wax kasta oo uu farmaajo ku doonayay inuu muddada ku sii dheeraysto shirkan oo uu gudoomiyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa waxa ka soo baxay qodobo muhiim ah oo hadii la dhaqan geliyo dardar gelinaysa in ciidamada mucaaradku ay uga baxaan fariisimahooda ay Muqdisho ka sameysteen dibna ay ugu laabtaan xiriyahoodii waxa kamid ah qodobada lagu heshiiyay in dhammaan ciidamadii ku yimid xiisadihii ka dhacay magaalada Muqdisho dib loogu celiyo goobihii ay ka yimaadeen loogana magaalada Muqdisho looga saaro 24 saacadood gudahood iyada oo ka bilaabanaysa 5 bisha shanaad 2022 in xuquuqda ciidamada sida mushaaraadka darajooyinka iyo xilalka wax saameyn ah aysan ku yeelan doonin qalalaasihii ka dhacay magaalada Muqdisho loona raacan karin wax kasta oo dhacdadaas ku saabsan in si gooni ah loo xalliyo saraakiisha leh duruufaha gaarka ah sida darajooyinka mushaaraadka iyo xuquuqda kale ee ciidan waa qodobka afraad in kalsooni laga dhex abuuro hay'adaha amniga iyo siyaasiyiinta qabatabashooyinka amniga gaarka ah 5 in ra'iisul wasaaruhu uu soo saaro wareegto uu ku farayo taliyaasha ciidamada qalabka sida in aysan ku bilmi karin arrimaha siyaasadda dhammaan qodobadan waxa fulintooda loo xil saaray ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa waxayna ka dhigan tahay in hadii uu dhaqan galo uu xilligan baaqi ay ku ahaan doonto dhanka ra'iisul wasaaraha oo qalinka ku duugay heshiiskaasi hadii xal laga gaaray xalka la gaaray dhaqangal uu noqdo waxa ay ka dhigan tahay in halkaasi uu ku soo gabagaboobay rabshadihii ka dhashay muddo kororsigii farmaajo samaystay ee suura gali waayay sidee ayaad u aragtaa mucaaradka iyo